bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal halkani waa channelka wararka dunida qodobada wararka xiisaha leh ee aan xiliga kan idin hayno waxa ugu waaweyn Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo war cusub soo saaray kuna saabsan doorashooyinka soo socda ee sanadka 2021 muxuu yiri Sheekh Shariif waana di soo gudbi doonaa mas'uuliyiin loo haysta dilka mas'uul kale oo maanta la soo taagay maxkamad waa kuwa xubnahaasi warkan ayaad gordhow ku daawan doontaan maxay tahay sababta ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu xalay ugu safray magaalada Muqdisho xilli uu gaaray dalka Mareykanka waana di soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan xogo dheeraad ah oo ka soo kordhay socdaalkii Cali Khaliif Galeed ee dhawaan uu ku soo gaaray magaalada Muqdisho kulama siyaasadaysan oo ka dhacay filla Soomaaliya oo Cali Khaliif uu ka qayb galay waan idin haynaa سعيد دني يا عبد الرحمن فرولة أو قرشة عصب كندنا دولة فدرالك إيه الصومالية كبلابي مقالة كسمايو إيه حرمت قبل كجمده هل كاسي أو أيولي كسجيهين وجدد أيولي وجوجار كسمايو وان إيه جدنا قد بدأ سعيد وركا كدا ودونتان دقيقة سؤال دان ربي وينها دي لقهلو صاحب بدأ قيمة يقدر أنت إنك مدن channel كان سبسكرايب هيدين هذا ساعدوه عشان هدي جور موقع لدينا حاجة هاتنا كسو دبادا warkii oo faahfaahsan madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee dawladii ku meel gaarka ahayd Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo ka hadlay doorashada Soomaaliya ee la filayo inay dhacdo 2021 ayaa ku gacan saaray shakiyada la gelinayo qabsoomida doorashadaasi Sheekh Shariif Sheekh Ahmed ayaa sheegay in dalka ay doorashooyin hore uga qabsoomeen iyadoo xaalad tan ka xun oo dalka xiligaasi ku jiray waa sida uu xusay waxa uu soo jeediyay in wada tashi saddex geesood ah laga sameeyo arinta doorashada isla markaana isku yimaadaan dawladda Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo axsaabta siyaasadeed ee dalka ka jira Sheekh Shariif ayaa yiri waxaanu doonaynaa in laga wada tashto inta ay wada qusayso arinta doorashada ee dawladda maamul goboleedyada iyo axsaabta siyaasadeed lagana wada hadlo nidaamka doorashada ay noqon karto oo macquul gal ah leesna meeligo nooca doorasho ee dalka uu galayo sidaasi waxa yiri Shariif Sheekh Ahmed waxa uu yiri isagoo si hadlayo ma doonayno in dawladda keento cudurdaar oo ah doorashadii waa la qaban waayay muddo kororsi ayaan sameysanaynaa maya ma aqbali karno duruuftan ka adag iyadoo dalka ay ka jirto doorasho lagu soo qabtay imankana waxaan doonaynaa in xukuumadda ay qaban qaabiso qabsoomida doorashada nooc waliba ha noqotee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee uu hogaamiyo Xasan Cali Khayre ayaa soo diyaarisay xeerka doorashada federaalka taasi oo ay ku hor yimaadeen qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka welina ma cadda habka ay u dhici doonto doorashada soo socota ee 2021 maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxa ka soo hormuuqday mas'uuliyiintii hore ee maamulka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale iyo shakhsi kale oo lagu magacaabo Nuur Ibraahim Mahadalle ayaa loo haystaa qarax lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Allah u naxariistay Cabdirashiid Cusmaan Carab qaraxaasi oo dhacay 19 bishii Abriil ee sanadkan 2019 qaraxii lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas marxuun Cabdirashiid Cusmaan Carab ayaa waxa mas'uuliyadiisa sheegtay xiligaasi ururka Al-Shabaab hase yeeshee mas'uuliyiintan ayaa xiligaasi loo xiray arrimo la xiriira tuhun ah in qaraxaasi ay ku lug lahaayeen qaraxa lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii Maxaas ayaa ka dhacay gudaha degmada Maxaas waxa sidoo kale ku dhaawacmay laba kale oo ka mid ah ilaaladiisii raggan oo maalmahan ku xirnaa magaalada Muqdisho ayaa maanta oo Khamiisa kiiskooda lagu galay inkastoo ay jiri doonto dhageysi maxkamadda ah oo fadhiyo kala duwan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waayahan dambe kordhisay shaqooyinkeeda la xiriira gudagalka arrimaha ay u xil saaran tahay ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa xalay u safray magaalada Washington ee dalka Mareykanka wafdiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxay ka qayb gali doonaan shirka sanadaha ah ee bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF waxaana uu shirkan ka dhacaya dalka Mareykanka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa la filayaa in shirka ka jeediyo
khudbad uu kaga hadli doono horumarka xukuumadda Soomaaliya ka gaartay barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya. sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa intuu ku sugan yahay Washington waxa uu kulamo la yeelan doonaa mas'uuliyiin ka tirsan bangiga adduunka iyo mas'uuliyiin kale oo hay'adda lacagta adduunka ka mid ah kuwaas oo kala hadlayo arrimo Soomaaliya ku saabsan sida in ay garab istaagaan Soomaaliya kana caawiyaan qorshaha deyn cafinta ee Soomaaliya. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka go'an tahay in guul ay ka gaarto barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya waxaana xukuumadda Soomaaliya ay hore u dhameystirtay shuruudo fara badan oo la hordhigay taasi oo ku aadan qaabka deynta loogu cafinayo Soomaaliya waxaana ka mid ah la dagaalanka musuqmaasuqa qorshaha maareynta dhaqaalaha dalka iyo qodobo kale aad muhiim ugu ah deyn cafinta Soomaaliya. xogo cusub ayaa waxa ay ka soo kordheen socdaalkii Cali Khaliif Galeer oo dhawaan ku yimid magaalada Muqdisho kaasi oo wali ku sugan Muqdisho. hogaamiyaha maamulka Khartoum State marna isku dayay in maamulkiisa uu ku beeriyo Somaliland ayaa maalmo ka hor waxa uu yimid magaalada Muqdisho. warar imanka soo ifabaxaya oo warbaahinta yeeshay ayaa sheegaya in ujeedka socdaalka Cali Khaliif Galeer ee uu ku tagay magaalada Muqdisho aysan ahayn wax sahlan balse ay tahay arrimo siyaasadaysan oo dowladda Soomaaliya iyo isaga ka dhaxeeya. madaxweynihii hore ee Khartoum State mudane Cali Khaliif Galeer ayaa magaalada Muqdisho u yimid yeeritaan ay u yeertay dowladda federaalka ee Soomaaliya. xogta warbaahinta yeeshay ayaa intaasi ku daraysa in Cali Khaliif Galeer iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya kulamo hore u dhaxmaray looga hadlay arrimaha maamulka Khartoum State iyo siyaasadda ka jirta deegaanada Somaliland iyo maamulka Khartoum. Cali Khaliif Galeer ayaa ujeedada ugu weyn ee loogu yeeray waxay tahay maamulka Khartoum iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka wada hadlaya arrimo dhowr oo la xiriira sidii dowladda federaalka ee Soomaaliya in Puntland oo ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ka dhisan balse mucaaradka ku ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u hesho arrin ay ku mashquuliso maadaama Puntland xitaa danaheeda gaarka marka laga soo tago ay ka qayb qaadato dowlad goboleedka kale ee dowladda ee iyaga is hayaan. taas ay dowladda federaalka Soomaaliya iminka doonaysaa in Cali Khaliif Galeer iyo maamulkiisa ay kala kaashato sidii ay xal ugu heli lahayd. xogta ay heshay warbaahinta ayaa intaasi ku daraysa in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka shaqeynayso arrimo ay ku mashquuliso Puntland oo xagga siyaasadda deegaanka ah. hogaamiyaha maamulka Khartoum Cali Khaliif Galeer ayaa wali ku sugan magaalada Muqdisho waxaana uu dhawaan ka yimid magaalada Hargeysa balse markii uu ka baxay magaalada Hargeysa wuxuu madaxda Somaliland ku wargeliyay in xaalada caafimaad uu u aadayo magaalada Muqdisho walo arinta ay taa ka duwan tahay ee uu kaga soo tagay Somaliland. ugu dambeyntiina Saciid Cabdullaahi Dani Cabdiraxmaan Faroole oo wali ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa wararka ka imaanaya halkaas waxa ay sheegayaan in ay ka wadaan Kismaayo kulamo ka dhana dowladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdiraxmaan Faroole iyo Saciid Dani toddobaadkan gudihiis kulan odayaasha daarood ee ku sugan Kismaayo oo ay kula yeesheen magaaladaasi waxa ay kala hadleen arrimo la xiriira in ay feejignaan muujiyaan oo aanay ku qaldamin qaabka ay haatan u wado dowladda federaalka ee Soomaaliya. kulanku ahaa mid qabaa'ilaysan ayaa Saciid Dani iyo Cabdiraxmaan Faroole kaliya waxa soo hor fadhiistay odayaasha beelaha daarood ee ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Cabdiraxmaan Faroole madaxweynihii hore Puntland iyo kan haatan ee Puntland Saciid Dani ayaa ka haray wafuudii kale ee la mid ahayd ee ka qayb gashay caleemasaarka Axmed Madoobe. maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa hab qabaa'ilaysan imanka isku bahaysanaya xilli khilaaf xoog leh oo kala dhaxeeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Puntland Jubbaland waxa ay ka gacan siinaysaa sidii markale Axmed Madoobe uu hogaamin lahaa Jubbaland maadaama doorashadiisa iyo caleemasaarkiisaba ay beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya iska diideen. warkii aad kala socoteen daawadayaal channelkeena wararka dunida xiliga kan waa naga inta daawashada wacan ee warka waad ku mahadsantihiin. nabadgelyo.